إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، قال تعالى في محكم تنزيله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أيها الأحبة، آيات كاين أخرني من سورة ياسين، وقصة كمذا قصص كربي وقرآنك كقور رميه. إلهي سبحانه وتعالى وحكى والرمية مقاله loo soo diray laba rasuul oo beenisay, oo rasuul saddexaad la soo diray oo beenisay. waa magaalo saddex rasuul yimaadeen oo saddexdii rasuulba la beeniyey. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa markaasi nin mu'mina oon isagu rasuul ahayn oo aan joogin meesha la ysku hayo, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qisadiisa uu ka yeelay qur'aanun yutlaa ilaa yowmi alqiyaama, qur'aan la akhriyo ilaa iyo maalinta qiyaamaha. waxaad qiyaastaa qof bini aadamah oo siiqa nakira ilaahay uu soo arooriyey, rajul baa ilaahay ku tilmaamay, laa shaara walaa sifa, wax kale oo la raaciyey ma jiro, wax taytale ma wato. ilaahay intuu rajul ku tilmaamay weliba siiqa nakira u soo aroortay, ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala min fawqi sabci samaawaat ka soo waxyooday ninkaasi qisadiisa. ilaahay wuxuu leeyahy: wajaa'a min aqsa almadiinati rajulun yascaa. waxaa ka yimi magaalada halka u dambaysa, qof goobta joogay ma ahayn, min aqsa almadiina buu ka yimi baa ilaahay ku sifaynaya. waxaa kaloo ilaahay ku sifeeyey inuu rajul yahay. dadka badh waxay isku mashquuliyaan magaciisa iyo magaaladu jooga iyo waxaas muhim maaha. hadday muhim yihiin rabbaa ka warrami lahaa. qur-aanka qisaskiisu uma qoro sida qisaska bini aadamka loo qoro. qisaska bini aadamka waxaa loo qoraa in la horraysiiyo magacyada meesha uu qofku joogay, magaaladuu joogay, wakhtigu ahaa. qur-aanku inta badan sidaa uma warramo. qur-aanku wuxuu tilmaamaa mowdic alcibra, meesha ay ku jirto qisada danta laga leeyahay. saa awgeed ilaahay ninkan magaciisa ma sheegin, madiinadu tay tahay ma sheegin. waxaa la yidhi ninkani wuxuu ka yimi min aqsa almadiina, magaalada xagga u dambaysa, meel fog. weliba waxaa laynoo sheegay sifada uu ku yimi, rajulun yascaa baa ilaahay yidhi, ninkaasoo rooraya, ordaya. naskan qur-aankii wuxuu tilmaamayaa qofkan muslimka ay mas-uuliyadda weyse saaray
ismuu odhanin war saddex rasuul baa la beeniyey adigu maxaad sheegaysaa ilaahay qisada wuxuu ku tilmaamayaa saddex rasuul inay magaalada joogaan idinka wax laga yaabaa inaad istidhaahdaan laba wadaad ama saddex wadaad baa joogay adigu maxaad sheegaysaa ilaahayna wuxuu tilmaamayaa meel saddex rasuul joogto oo saddexda rasuulba la beeniyey muu quusanin oo ismuu odhan oo rasuulba la aqbali waayo adiga maxaa lagaa yeelayaa ee wuxuu dareemay mas-uuliyati dacwa diintan in mas-uuliyadi ka saaran tahay wuxuu dareemay dadka quluubtoodu inay biyadillaahi ku jirto quluubta bini aadamku waa biyadillaah subxaanahu wa tacaala falsafo badan iyo wax badan uma baahna cidda alla hanuuninayaa kalimaad yaroo kooban bay ku hanuuntaa sidaa awgeed buu ninkani yimi isagoo leh ittabicu lmursaliin doorku qaadanaya waa intaa un waa rususha raaca qisada waxyaabahay tilmaamayso waxaa ka mid ah mas-uuliyadda qof kasta oo muslima diintiisa ka saaran dadkii muslimiintii hore bimujarad intimaa'ihim ila addiin kaanuu ducaatan lilaahi subxaanahu wa tacaala markay islaamaan laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah yidhaahdaan oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalin 2 casho 3 maalmood la joogaan kadib waxay qaadi jireen xilkaa inay tolkood diinta ugu yeedhaan cilmi badan uma baahna inaad dadka diinta ugu yeedho waayo diintu usuul bay leedahay furuucda culammadaa dhigta diintu usuul bay leedahay ilaahay waa keliya caabud nebi maxamed waa rasuulkiisa iyo rumee salaad tuko arkaan alislaam waa wada taqaaniin arkaanu liimaanna waa taqaaniin walaslu fi ddiini haada asalka diintuna waa taasi waxa dadka loogu yeedhana waa taasi sidaa awgeed baa saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bimujarad ay islaamaan ayay xilka diintan qaadayeen inay muslim noqdaan oo ashahaataan ayay diinta ku qaadayeen xilkeeda bale nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu ku yidhi qum faandir imise qur-aanka soo degay riwaayaadka qaarkood waxay leeyihiin waa suuraddii 2 oo markaa dhowrka aayadood ee iqra ugu horreeyo qura soo degay 4 suuradood qaybahooda u horreeya ayay kullu lmufasiriin isku waafaqsan yihiin inay yihiin qur-aanka intii u soo hordegtay waa iqra bismi rabbika aladii khalaq aayaadka ugu horreeya iyo yaa ayuha almudathiru qum faandir yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nuun waalqalami wamaa yasturuun 4 suuradood bay mufasiriintu kala horraysiiyaan ayan kaanad xataa haddaad tidhaahda 4 waa tii u dambaysay qur-aan imisaa soo degay intaasuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo waxyooday laakiin waxaa la yidhi qum faandir kacoo dig idan dadka in loo digaa cilmi tiro badan uma baahna waxay u baahan tahay qofku inuu mas-uuliyaddaa qaado nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu diinta dadka u sheegay abibakar sidiiq baa rumeeyey abibakar isma odhan nebigaa joogay adigu waxba ha sheegin bale culammada taariikhda qaar ka mida waxay tilmaamaan 10 lmubashiriin inta u badan inuu abibakar islaamiyey طلحة iyo abu cubayde iyo cuثmaan iyo raggaasi miisaanka abibakar bay ku qorayeen abibakar baa intuu islaamiyey nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam idan xilka diintu wuxuu saaran yahay qof kastoo muslima waxaanu ka saaran yahay diintan ilaahay inuu qaado oo dadka gaadhsiiyo nebiyullaahi moxamed waa aakhiru rasuul nebi ka dambeeye rasuul ka dambeeya lama soo dirayo isagaa ugu dambeeyey intuu nebi maxamed gaadhay dunida جزيرة العربية كما بحي النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك إلهي وحلي نذيرا للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا دادور دنبان نكو صادري وهدي دادور دن الله صادري إسنان جزيرة العرب كبحين سيدابا يكون عيسى وحيكون عيسى قف كستو مسؤولة قف كستو مسلمة أي مسؤولية داسي سارنتي ولذلك markii
حجك النبي صلى حجي عليه الصلاة والسلام صحابة أولها اللي وحكوا بلغوا عني ولو آية وردتك يقارسية آياتنا هالنقطة إلهي أي النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية قرآن من ساقي بسنتي ninka ugu yara faataxada qaybsani 7 aayadood buu hayaa qofka ugu yar haddaad daaci muslima tahay dad badan oo aanay faataxadu gaadhin baa idinla nool dad badan oo aanay faataxadu gaadhin baa idinla nool nabiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam adaa wakiilka ah haddii isaga la yidhi nadiirun lilcaalamiin baa tahay adigu ku soo gaadhsiiyo xilka ku saaray أدنى أنت تقاري سينا تقارسي سابا كوركا قصارا أيها الأحبة ليس ما يرهدو أرمى لقا أقبلي وياه نكان يسدح رسول بالديدي اسمه أورانين ورنا ما كان يسدح رسول ديدي ده أديك بكو يالي مايان أدو ميل صدح عالم ومسلم الرسول كالي صدح شيخ وعلماء تقدم بيساميل نما يلاحظ لين أما قوم يلاحظ لين ويديدين أدنى ما وسوا حيدان لهيدا ما يسوران لهيدا وحشك سوا حضران لهيدا علماء دي بينية أنا كوا علماء دي بينية ما هي شيء جيان قف والبا ملبا كلمة دي سكا صعطة نينك وايلك نينك تاجرك نينك سلطانك نين والبا ضد با قدم بيو إريجي سقيمية وهدو كويرا هذا السيدة هلا يلاني كسو علينا مصالح يكون قبان درادود إلهينا القرآن كوحكوت ليه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلهي عدنا ما تكليفنين وحكوسيي مويانه آخر إلهي وحكو ويدين يا وحكوسيي محات سلام كوكو قبط دا تاجر هاي محات كو قبط تجارة دو حشي كريسي حولها قاد وحكو قبان كريسي هداد سلطان هيدي هداد عاقل هيد محات كو قبط هداد افتهن يقبا ياها محات كو قبطي إلهي الدقم كي يفريد كآخرة حتى يسكسي الله حساب مايو نفو البوحي لسيا لغو حسابيا قفوا لبدين تنمركا مسؤول بكيهي ساوغيد دور سببات بوين الدين تو حنبارتا كو وين دو حنبارتا إلهي حجدي سين الدتك كو أكتو رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دتك الله ما شيء قرة الراعي مايان ييكو الراعي حجة كدلوك ويا نبي عليه الصلاة والسلام حتى الماما يا قيامها الرسل يا النبي إيمان دونه قيامها النبي با إيمان دونه أنا عيد بالله صعن مد با إيمان دونه قفل صعده مد با إيمان دونه الله بالله صعده هذا هو النبيه ما دعوته مفاشل بيهيد مايا قوم دقاتك باكو بيغمي لكن واجب كيها آخر إناني عذر دار هلين بكو أوغي إلهي سبحانه وتعالى وحلي الرسوش أيام منذرين تأيو حنو صادر ري لألا يكون على إناني هلين آخر وح عذر دار إناني هلين عذر دار كادق على غير رباين تفيده شقد هذا ما هين يدتكو إلهي الراعاني إنانا الراعين إلهي باتاكو شغله أدو إنا تبين ميسو عدي سيد دادكو إنا إلهي الراعان بعدك أدو شادا صارا سيدا أوغيد أيا قولادي اللي يري لما تعيدون قوما الله مهلكهم محادو وانيني سندول إلهي سبحانه وتعالى هلاقيو نمانكي سبت دا وغار صدي اللي يري سبت دا وغار صنينا بلشدي صدح قيبات باي نغطي قيب وغار صدي فرسمي حيالا دا انتي سميسي إيوه قيب تري وركداية هي قيب اسكا مستي قيب تاسكا مستي بدن قرآن كوحكم شيئين لكن وحو شيئين وركودي هايو كلية لما تعظون قوما لهم هلكم وانا ما كان الدين توا اوغيين ان لغا ممنوعين وا اوغيهين maxaa u waaninaysaan kuwan ilaahay baa halaagaya way dhaga xidhaane maxay ku yiraahdeen qaaluu macdiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaquun waxaanu waaninayna laba shay macdiratan ila rabbikum aakhiro inaanu anagu xujadii ku oognay inaanu la nimaadnaan aakhiro anaga naloo qabsan dadka la nooshin haday yiraahdaan diintuna may soo gaadhin idinka la idin qabsanaya idinka la idin weydiinaya ma ku oogteen mise kuma idan oogin dadkani waxay leeyihiin waxaanu dadka wax ugu sheegaynaa laba sababood macdiratan ila rabbikum inaanu marka hore
xujada ku oogno si aakhiraanu cudurdaaru helo annagu u badbaadno idan adiga badbaadadaada ku xidhan inaad dadka diinta gaarsiiso iyo walacallahum yattaquun iyo la arkee inay iyaguna ilaahay ka cabsadaan oo waanadu dhagahooda gasho labadaba waa rabnaa bay leeyihin idan dacwada waxaa loo sheegaa inaad xujada dadka ku oogto waxaa loo sheegaa inaad adiga aakhira cudurdaar ay ku noqoto waxaa loo sheegaa dadku inay hanuunaan dadku inay hanuunaan inagu inta badan dadku hanuuni maayo waa hanuunayaan tun baynu moodnaa inay tahay sababta wax loo sheegayo laakiin sababahaas oo dhan ayuu qur-aanku inoo tilmaamaya ayuha alaxiba ninkani mas-uuliyaddaasuu qaaday inuu magaalada halkeeda u dambaysa ka yimaado isagoo weliba rooraya warka uu sheegayaana waa kooban yahay ittabicu lmursaliin buu leeyahy ittabicu lmursaliin taariikhda islaamiga marka laga warramo in badan kutubu taariikh waxay ka warramaan kutubtana taqaaniina taariikhdu inta badan taariikh uljuyuushi waalcuruush bas boqorkaasaa joogay boqorkaasaa bedelay boqorkaa kala qabsaday boqorro iyo futuuxaad gaalaa lala dagaalamay magaalo heblaayaa la furtay magaalo heblaayaa la furtay laakiin taariikh ka muhiimsan baa jira oo dhul kale ku qoran taariikhi fatxi alquluub dadka quluubtooda ayaa furtay caalam alislaami min mashriqihi ilaa maghribihi dadkan islaamay askartu wax ma islaamiso askartu magaalay dumisaa ama qabsataa dad bay xoog ku qabsadaan laakiin yaa islaamiyey dadka juyuushun min adducaat baa islaamiyey dad diin waday oo dadka diin u sheegayo dantoodu ahayd inay dadka diinta gaadhsiiyaan dadkaasi in badanoo ka midi waa aljundiy almajhuul waa dadaan taariikhduba qorin misaalo basiitaan ku siinaya caalam alislaami niman tataar la yidhaahdaa jabiyey magool tataar bariga fog bay ka soo bilaabeen jayna agagaarkiisa dabeetana muslimka dowladihiisii oo dhan waa soo jabiyeen ilaa iyabay soo gaadheen falastiin markay marayeen dhexdeeda ayaa muslimiintii masar joogtay is urursatay oo jabisay muslimiinta masar zaxfigii unbay joojiyeen intii kaloo dhan caalamulislaami way haystaan wax ciidan oo xoreeyey miyaa maqasheen wax ciidan oo dambe oo caalamulislaami xoreeyey miyaa maqasheenoo muslimiini leedahay muslimka ciidankiisii inay zaxfigaa joojiyaan unbay ku joogsadeen bes yaa haddaa xoreeyey caalamulislaami ducaad baa xoraysay dadaan inta badan taariikhdu qorin baa xoreeyey dowladihii tataarkee meesha ka dhisnaa rag muslimiinta ka midunbaa diin u sheegay oo iyagii baa la islaamiyey dabeetana iyagii baa dib u noqday ciidamo muslimiin oo dunida dib u furta alqabiila adahabiya qaybtii waqooyiga ee raashiya qaybo badan oo ka mida iyo yurub tarbariyo dhulkan furanaysay waa dad mangooliyiin ama tataar oo dib loo islaamiyey taariikhdu ma sheegto inta badan taariikhdu ma sheegto adigu garan maysid ilmaha aad qur-aanka u dhigaysa ama dadka aad diinta u sheegayso waxaa laga yaabaa ka ilaahay dunida ku furi doonaa inuu kan yey ama kani ku waxu sii dhigay inuu yey ama kiisa shanaad inuu yahay ma garanaysid waxaad culamo maqasho yaa soo saaray shaafici yaa keenay midunbaa shaafici bergu yaraa faatixada u soo dhigay oo diinta ku soo duway oo toosiyey kii garan mayno laakiin shaafic oo dhammi wuxuu sameeyey kaa miisaankiisu ku qoran yahay idan qofka muslimka ahi ilaahay waxba kama lumaan qofka muslimka ahi wuxuu u heegan yahay adigu garan maysid nolosha cidda beddelaysa ducadda maanta joogtaa waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdo dariskaaga dee haddaan dad badani fadhiisan ma laba qof aad wax u dhigaysaa qof qudha wax u dhig kaasi kugu sii dhiga kugu saddexaad ee u sii dhigaa laga yaabaa inuu furto waddankan aad joogtaan oo dhan diinteeda beddelo aduu garan maysidse yaa alla barakaynayaa ma ogid sida awgeed qofka muslimka ahi waa inuu xambaaraa diinta tan oo isku dayaa dadka inuu gaadhsiiyo mas-uuliya haadihi dacwa oo fursad kasta uu helo uu ka faa'iideeyo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa rusushu
furaska siday uga faa'iideynayeen nebiyullaahi yuusuf oo xabsi ku jira oo laba wiil u yimaadeen wadakhala macahu sijna fatayaan qaala axaduhumaa inii araanii acsiru khamra waqaala alaakharu inii araanii axmilu khubzan fawqa ra'sii ta'kulu tayru minhu laba wiil baa xabsiga la galayoo mid wuxuu yidhi riyaan arkay anigoo khamri walaaqaya midkii kalena wuxuu yidhi anigoo khubus madaxa ku sida oo shimbira cunayaan baan arkay ee nabi'naa bita'wiilihi innaa naraaka min almuxsiniin bay idhaaheen noo sharax ta'wiilka riyada noo sheeg waxaanu kuu aragnaa qof suuban oo wanaagsan inaad tahay nebiyullaahi yuusuf intaanu riyadooda u sharxin wuxuu ka bilaabay inuu isagu isu sharxo iyo wuxuu aaminsan yahay iyo diintu rumaysan yahay innii taraktu millata qawmin duul baan ka imi buu yidhi aan ilaahayba rumaysnayn oo mushrikiina waxaan raacay waattabactu millata aabaa'i ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub aabbayaashay diintoodii tawxiidka ahayd baan raacay buu leeyahy markuu isu sheegay wuxuu rumaysan yahay iyo wuxuu yahay intaanu u fasirin riyadoodii fursadaa yar buu ka faa'iidaystay dabeetana markaasuu leeyahy yaa saaxibaya sijni aarbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar war ma ilaahyo badan in la raaca ayaa fiican mise rabu samaawaati waalardi ina raacdaan baa wanaagsan dacwuu bilaabay waa fursad su'aal la weydiiyey buu isku dayayaa inuu ka jawaabo intaanu jawaabta siinin inuu ka faa'iidaysto wuxuu rumaysanaa inuu dadka kan u sharxo imise fursaa ku soo martay nolosha imisaa tijaaro la wadaagtaan imisaa jaartiin imisaa saaxiibtiin imisaa iskuul wada dhigataan imisaa jaamacadda wada joogtaan imisaa isku dhadhowdiin imisaa wax kala iibsada imisaa fursaa ku soo martay intee baad noloshaada ilaahay diintiisa uga faa'iidaysay wixii fursad ku soo maray hadda furaska dhaqaaluhu idinma dhaafaan hadday kuu bidhaanto meel yaraad si leedahay waxbaa laga helayaa waad qodaan qofna kama tago laakiin fursadaha diinta ma tijaabinaa inaynu qodno oo isku dayna inaynu dadka diinta u sheegno ayuha alaxibba dacwadda tani afarta wadaad ma saara waxay saaran tahay qof kastoo muslima diintan inuu xambaaro qof kastoo muslima bay saaran tahay hadduu sultaan yahay hadduu madaxweyne yahay hadduu sarkaal yahay hadduu taajir yahay qof kasta meelo badan aan aniga layga dhegaysanayn baa adiga lagaa dhegaysanayaa oo ama odaynimo lagugu qadarinayaa ama hantidaada lagugu qadarinayaa ama booska dawladda aad ka joogto lagugu qadarinayaa oo dadku ay wax kaa dhegaysanayaan aakhira ilaahay wuu ku weydiinayaa diintii maxaad ugu qabatay waxaan ku siiyey waxaad haysatay maxaad diintii ugu qabatay ninkaas muslimka ah rabbi quraankiisa uu ku qoray ee ilaa qiyaam saaca quraanka inuu ilaahay ugu dhawaanayna akhrinayno weedha laga tilmaamay waa inuu yidhi tabacu lmursaliin waa rususha raaca buu ku yidhi rususha raaca ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhafa la weydiisto الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى قصة النكاس وحين وقت المامي اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون والراعب يريد أن أجرد ويدي سنين waxay culimadu yidhaahdaan axsan wasiila lidacwa waa inaad qofka danka lahayn hadduu qofku kugu tuhmo inaad mansab iyo maamuus ku doonayso inaad lacag iyo xoolo ku doonayso inaad jeebkiisa ku baadhanayso waxay u badan tahay inaanu hore kuu dhegaysanin walidaalik ayuu ninkani markuu tolkii la hadlayay wuxuu leeyahay
inay hanuunsan yihiin wuxuu ka horu mariyey inaanay dan kala lahayn ittabicuu man laa yas'alukum ajran ajar adduun inaanay idinka doonaynin maxaynu diinta u sheegaynaa inaynu aakhiro ku badbaadno inaynu ilaahay ku raalli gelinno inaan ilaahay ajar kaga helno walidaalika baa ilaahay rusushiisa markuu ka warramayo في سورة الشعراء أما سورة كلابا فاتقوا الله وأطيعون مركا إلى هذان محيكو حكسينيا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وحأجر إذن كما الدورين يدو إلهي أقيهي رسوشو إن أنا إدتك تشيب كود الدورين إنما وحبينك قاتان أنا الدورين أيا وحل يدتك وحد عضيسان قل آياتك كالي dadka waxaad u sheegtaan baa la leeyahay inaydan wax xoolaa ka rabin wax ajara inaydan ka doon wahada huwa al-aslu lid-diin asalku diintu waa in ilaahay loogu dhawaado nacam haddii ninka sheekha ah yaan jeebkiisa wax ku jirin habeen iyo maalinbana uu carruurta qur-aanka u dhigaya ama kan wax dhigaya wax la siiyo weeyaan laakiin intiinan kale xoogsatay idinka ajar dooni maysaan miya ama se dacwa idinma saara miya intiina xoogsataa weedhoodu ka geli og tahay dadka intaa ajarka ku siisaan kana shaqa uga dhigtayna waxa moodaysaa inuu shaqaysanayo oo xoogsanaya dee waa wadaad xoogsanaya laakiin asalku waxa weeyaan diinta inaan laguba xoogsanin baa asala asalku waxa weeyaan dadku inay dareemaan inaad diin wada inaad jeebkooda baadhanaysa inaanay moodin asalku waa kaa asalku waa inaad waxaad sheegaysa janno ku raadiso نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي بيعة العقبة الثانية صحابة دي أنصارت مركا ويمادين أي هشيس كلا قالين هشيس بي لقالين إنو سوهي جرودو مركاسي أي كم من عنيان وحي نفتو دي مالكو دي دمركو دي عرورتو دا سيدا يو إلاليان سلمي دين يو إلالين دونا النبي عليه الصلاة والسلام وليبا يقو صحابي ugu yaraa markay sidaahay nabiga baycada la galay wuxuu yiri war suga war hadda nabi maxamed qaadataan arab oo dhami meel qura idinka soo wada tooganaysaana waa la idin la diriri doonaa waxay dhaadeen dhaaf wiilka yarow saasaanu nabiga heshiis kula galeynaaye su'aal bay nabiga weydiiyeen alayhi salaatu wasalaam xadiidka xasanka fama lana baydadeen haddaanu ku difaacno oo diinta nafya maalba u hurro oo gaaloo dhan u babac dhigno maa lana maxaanu anagu leenahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuma odhanin aniga dabadayba madaxweyneyaal noqonaysaan ama wasiirraa noqonaysaan iminka dadku waxay la qabo waxaad odhanaysaa dee maxaan leeyahay marka aadna waxoogaaba ku soo gaadhi doona meelay kaa soo gaadhaanba mantiqa bini aadamka ee caadigii waa kaa waxaa ila qabo maxaan leeyahay baa ku xigta saxaabadu waxay dhahaan famaa lana maxaanu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan dabadaybay ansaari wax maamulaysaa haniimadaa xoo idin burin doonaa xoolaan idin siin doonaa magacyo maamuus baa heli doontaan midna laguma odhan lakum uljanna buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad diinta u hiilisaan jannaa leediin asalku waa kaa markaa diinta qofkii maal gashada caqli gashada xoog gashada إلهي بوحكر رادينيا سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى بوحكر رادينيا ما هم الله صار شغتك أصليا وميل إلهي لغلا حوكسده وميل إلهي أجر لقر راديا سبحانه وتعالى لكن هدين نقطة وحوقا لغو حوكسده وذات كان الله أركين حوكسن نمن حوكسن إياه دينتو فافي ميسو دينتو وحي فافي سامركا دمانتين قادان markaad ku xisaabtanto mantiqa inaad ilaahay wax ka raadinayso marka aanad odhanin qolaanu lacag siinaayo noo qaabilsan aad tidhaahdaa aniga mas'uuliyaddu isaarantoo fulinaya ana mas'uuliyaddu isaarantoo fulinaya marka aanad odhanin haddaad shaqo soo yara hesho waar bal qur-aanka idinku sii dhiga anigu waxoogaa baa meel halkeera ka helaya wadaadkii in yar isku duwaaba hadduu yidhaahdo sii wada waxoogaa lacagaa meel ka muuqatee dad minis lacagtaa inooga qiimo badan inaynu diin sheegno waxay ahayd inaad lacagta beerdarayso si aad diin u sheegto inaad tidhaahdaa ilaahay waxaan kula baacmushtaraynayaa wakhtigaasi saacaddaa inaan wax dhigo walow hal ilmana wax u dhig hal qofa hanuuni
wakhti aad diin ku sheegto waayi maysid wakhti aad xilkaa qaaddo waayi maysid cid aad u sheegtana waayi maysid qof kasta cid ka diin yar baa joogta qof kastoo inaga mid ah cid ka diin yar baa joogta oo waxuu u kordhin karo intay doontaba ha leekaatee midaad tidhaahdo war khamriga iska daa iyo midaad tidhaahdo war salaada tuko midaad tidhaahdo war ilaahay ka cabso midaad tidhaahdo war gabadha si fiican u qab waa diin wuxuba idan qofka muslimkaahi wuxuu sheega ma waayo saawgeed ninkan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa ku sheegay waxaa lagu sheegay inuu lahaa rasusha raaca rususha markuu ka hadlayana wuxuu yidhi ittabicuu man laa yas'alukum ajra war cidaan waxba idinka doonaynin inaa hanuuntaan uun rabtaa ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun inaanay wax idinka doonayn waxa u raacsiisan ariiqa saxaa bay hayaan wakhtigoo kooban daraaddeed qisada wadi mayno laakiin inta ugu dambaysa aan akhriyo qiila dkhuli iljanna ninkani dadkii xujada wuu ku oogay mufasiriintu waxay yidhahdaan isna waa la dilo waxba lagama dhegaysanin dabeetana toos baa ilaahay u yidhi janno gal qiila dkhuli iljanna shahiid baa tae gal jannada baa la yidhi markuu jannada galay muxuu ka fekerayey adiga haddaad dad diin u sheegto ay ku dilaan inay ku dilaan daayo hadday ku yaracayaan ilaahu kuwan halaag inaad tidhaahdo habaartantaa laga yaabaa ilaahay wuxuu ka warramayaa ninkani markuu dhintay ee aakhiro qabtay siduu u fakerayay caqliyaddiisu waxay ahayd yaa layta qawmi alla jeclaan lahaaya buu leeyahy tolkay inay ogyihiin sida rabbi iigu dambi dhaafay wayana hanuunaan weli isagoo aakhiro sii jira nimankii dilay ma laha ilaahayow kuwaasi dartaa bay noo laayeene cadaabka ka gure wuxuu leeyahay alla jeclaan lahaayee tolkay inay diinta qaataan oo ay gartaan sida rabbi aniga igu naxariistay macnaheedu waa maxay waxa weeyaan qofka muslimka ahi waa qof laabtiisu ballaadhantay waa qof colaadda ku yartay waa qof dadka khayrka la jecel waa qof jecel inuu wanaagu faafo waa qof aan cuqdad qabin ma intii rususha lagu yidhi in ka badan baa adiga lagugu odhanaya ilaahay rusushiisii baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa saaxir iyo kadaab iyo waxa inay ku sheegeen beenaalaatay ama saaxir baatay ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo socdaa adeerkii daba socday ka warran adiga haddii adeerkaa ku daba galo oo meeshaad istaagtaba uu yidhaahdo yarkan anaa adeer u aha waa been wuxuu sheegaya waxba kama jiraan sare jooggaa naftu kaaga bixi lahayd baan u malaynayaa laakiin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo abiilahab daba taagan yahay oo adeerkii ruma ah oo le kan yar annagaa isku reeree waxba sheegi maayo kamuu quusanina saasuu diin u sheegayey idan waa lay caayey iyo waa lay maagay iyo dadkani way dhaga adag yihiin dacwadu kuma joogsato qofka muslimka ahi waa inuu xilkaa qaadaa ah inuu dadka khayrka la jecel yahay inay hanuunaan inuu jecel yahay nebi moxamed baa loo yimi calayhi salaatu wasalaam oo qabiiladii daws lo odhan jiray ay diinta diidday maca odaygoodii ay ka diideen tufayl ibnu camar nin waayeela oo madax u ah oo gabyaaya oo aftahana oo laga dambeeyo waa la hadlo wuu marsiin waaye wuu soo noqdo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo reer dows diintii diide aqbalina waaye ilaahay u bari kuwa inaan la halaago diintii diidee dabeetana nebigu gacmuhu kor u taago markaasaa la yidhi mar haddii nebi maxamed gacmaha kor u taagay reer dows maanta halaagsame allaahuma hdi dawsa waatinii bihim buu yidhi nebigu xadiidka bukhaari ilaahu reer dows hanuuni oo ii keen ilaahay reer dows waa hanuuniyo waa keenay dee abaa hurayra ka mid ahaa kuwii alla keenay abaa hurayra ka mid ah idan dadka haddaynu khayrka la jeclaano u dadaallo ku xisaabtami mayno iyaga caydooda iyo maagistooda iyo colaaddooda iyo waxay samaynayaan waxaas ilaahay baad ajar kaga helaysaa ku xisaabtami mayno ilaahay ninkaa wuxuu qur-aanka ugu sheegay baynu leenahay shaqadu qabtay daraaddeed hadda iyadoo aan la aqbalina la dilay ninkan dad badanoo hanuunay oo uu hanuuniyey qur-aankuma sheegin bal in la dilaa ka muuqata qur-aanka haddana mowqifku istaagay rabbi baa min fawqi sabci samaawaat intuu ka xusay kitaabka khaalidkaa ku qoray
سأوجد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هدات شعشة جدك سقاط إلهي سبحانه وتعالى هدات ربطين وكوش علاده إلهي يدتك يسوير مخلوقات كاسي ربي قد كحرين يعابدان نبي محمد عليه الصلاة والسلام هل وصلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم أعز الإسلام وأهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأقم الصلاة